السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed maxamed meel walba ay daataha caalamka kaga nool yihiin waxaan leeyahay jumca kariim jumca mubaarak waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabad iyo amaano Allah kulkiina mar walba ahaato maanta halkan waxaan ugu soo laamay inaan ka soo galo page-gan ama Facebook inaan maanta live ka soo galo waxay u kalifay arrimo yaroon aad uga beer xumaaday oon ka walwalsanahay oon ka murugeysanahay oon aad uga xumaaday anigoo ku sugan magaalada Jigjiga waxaan dhammaan maanta ummadda Soomaaliyeed farayaa haddii aynu nahay ummadda ka soo jeeda gobolka City ee Soomaali galbeed haddii aynu nahay horta waxaanu nahay anagu dad Soomaali ah oo Soomaali maxamed ka soo jeeda waxaan nahay ummad Soomaalinimada mar walba ku faana waxaan nahay ummad mar walba Soomaalinimada qadariya waxaan nahay ummad mar walba Soomaalinimada u hiiliya waxaanu nahay ummad mar walba u hadla codka Soomaaliyeed dhibka Soomaaliyeed faa'iidada Soomaaliyeed iyo waliba difaaca Soomaaliyeed mar walba waxaan idin sheegayaa horta haday hore loo yiri hadana fanaanahay fanaaniintu ma aha inay ka hadasho arrimaha siyaasadda laakiinse marka aad fanaan tahay ay ummadaadu dulman tahay ay dib badan ku jiraan aad ka aamusto waxa tahay qof liita oo doqon ah oo waxba marnaba aan faa'iido u soo kordhinayn bulshada fankaagu waa inuu noqdo haddii aad fanaan tahay dad bulshada Soomaaliyeed iyo dadkaaga aan mar walba diwa ficil gelinaya isku keenaya soo ururinaya difaacaya una heelanaya waxaan maanta ka hadlayaa waad ogtihiin dhibaatada taalla maanta galbeedka City waa la wada ogyahay dhibaatada ka socota maanta gobolkeena City waliba dhinaca galbeedka ah in ay ummad isbahaystay oo terroristiya budcad ah ciidankoogii shicibkoogii awoodoodii ilaa iyo jabhadoodii inta ay isku bahaysteen ummad yar oo meel degan oo nabad ku fadhiya inta ay weerarayaan dibka ay u geysanayaan waa la wada ogyahay taas way waliba federaalka Ethiopia hadii ay tahay Soomaali galbeed dawladdeegaanka Soomaalida dawladeeda aday tahay ay xitaa ilaa iyo hadda wax jawaab ay ka bixin weeday waxa aan xaggan u soo galay maanta inaan idin sheego waryaadeen hadii aad tihiin dhalinta ka soo jeeda Soomaali galbeed waxaan leenahay horta maanta Soomaali maxamed dhinaciigi aad bay inooga gaabisay maanta garabkii iyo gaashaankan anagu u haynay maanta mid lamida kama hayno balse laakiinse waxba ma waxa laakiinse maanta muhiim ah waxaan farayaa ummadda ka soo jeeda gobolka City dhammaan war dadkan aad moodaysiin inay dawladdiina ay tahay war dadkan aad moodaysiin inay tahay dawlad iniga idin hadlaya ama aad moodaysiin dawlad idin maqan oo iniga wax inii qabanay hadaad moodaysiin gebigiinuba waad ku khaldantiin waxa maanta idin soo martay dawladdii abid ugu jilcsanayd ee maanta Soomaali galbeed soo martay ee ugu liidatay ugu taahilsanayd ugu doqonsanayd ee ugu waxtarkeeda maanta soo martay waxaan idin sheegayaa maanta dawlad ka liidata dawladdan maanta Soomaali galbeed maamulaysa iyo madaxdan idniga waliba aan idinka soo jeeda ee isla haydeen waxba idin qabanayaan oo idin soo kordhinayaan maanta wax ka liita oo maanta ka waxtar baan caalamka nama soo marin waxaan idin sheegayaa idinku isku taga war muujiya dadkii naas iyo ummadii naas inay maanta dhibaataysan yihiin muujiya ma war inagu marka aad difaacatiin ee wax walba u hurtiin ee naftiina u hurtiin ay Soomaali galbeed iyo Soomaalida dhammaan daafiyaha caalamka ku noolba ay idinkuna garab idin siinayaan oo idin soo garab istaagayaan waxaan aad moodaysiin inay wax idin qabanayaan waxba idinama soo wadaan waxba ka sugina waxa aan la yaabanahay bootaale ninkan bootaale Mustafa Cagdar ma ahaniyo waxaan idin sheegayaa ninkan Mustafa Cagdar bootaale in uu mar walba ku hadli jiray in uu dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ay wax dhibaato ay soo gaadheen laakiinse maanta waad arkaysiin inuu hal jawaab ka bixin lahayd oo wax waxtar dhalintii Soomaaliyeed oo dib dhibaato lagu geysanay laakiin ummadii kala dhibaatoonaysa iyo shacabkii xaq darada lagu weeraray waxba u qaban lahayd marka waxa sheegaya joojiya calaalka dad calaamatihiin dad maanta baroorta ma tihiin
dumarkeena walaa raggeena sheegaya haddii maanta haddii ay idinka waxba iniga soo bixi waayaan idinka uu difaac iniga soo bixi waayo wallahi billahi cid idin maqan oo wax idin qabanaysa ma jirto maanta oo jimca oo ilaahay samadiisu farantahay waliba ilaahayna maqlayaan idin sheegaya waxaan idin sheegayaa maanta marka la idin arko inaad inigu garab siinaysaan dadkiina eed u hadlaysaan ayaa dadka kalena wax idin qabanaya fadlan waxaan idin ka codsanayaa bal horta muujiye inagu u soo dareera war xuduudaha sheegaysiine Ethiopia horta maanta markaad inagu wax tustaan bay Ethiopia wax idin moodaysaa moogta haddii Ethiopia inagu aad wax tusiweedaan waxba idinma moodayso idinka ayaa dadkiina hogaamin karaya idinka ayaa dadkiina wax u soo ridi karaya shalay waxaan qurankeen meesha aad dawlad ku sheegaysiin iniga keenay meesha iniga dawlad ka dhigay iniga buunbuuniyay iniga kibriyay iniga wax aan iniga maanta heerka gaarsiiyay waana abaalkiina waa abaalkiina maanta inay macnaheedu desaad oo kale idin la dhaqmaan ay Soomaali galbeed oo dhan basaa uga dhaqmaan waa abaalkiina inay maanta dhagba idin dhigi waayaan sababtoo ah idinka buunbuuniyay oo wax weyn ka dhigay war haddii aad awoodiina sidii u haysan lahaydeen oo quursan lahaydeen oo madaxa kaga joogi lahaydeen oo sidii ninigu isku duunaan lahaydeen oo midnimadeena aan maanta basaa u muujin lahayn maanta ninma hadleen oo sankaasaan kaga dul fadhin lahayn laakiin idinka kibriyay idinka waxa idinka u siilaan daayo oo awood maanta siiyay hay maxaad ka faa'iideen maanta hay gorgor TV waniga arkaya kama xumi inay soo diidayaan dadka ummadeena walaalaheena oo gorgor ku cunay kama xumi laakiin dad dhan oo jabhaday ay soo weerartay umeedkooda xagee daadsan yahay oon anagu tacsiisanahay oon iyay waa iniga arkay waxa sameynayeen hay ma dadkaas ay idin dabqanay markaa Soomaali galbeed oo dhan Soomaali Maxamed ma eedeynayo Soomaali waa walaalahay gobol walba oo Soomaali galbeed ka soo jeedaan anigu maanta ma eedeynayo annagay walaal noo yihiin igara la hada xogaa hay Soomaali galbeed ma eedeynayo Soomaali galbeed waa walaalaheena mar walbana garabkeena taagan yihiin laakiinse waxa ina ka xidhaya dadkeena kala xidhaya ee kala joojinaya waa xukuumadan aad inigu buunbuuniseen ee wax ka dhigteen marka waan ogahay dadka ay soo qoraya fanaan siyaasadda kuma fiicna waan ogahay walaalkayo inaan fanaaniinta ay siyaasadda ku fiicnayn laakiin damiirkeeba ku siinaya dadkiina qof walaalkaaya oo dhibaataysan oo moogtahay cadow soo weerarayo oo la iskugu tagayo la iskugu helinayo inaad ka aamusto damiirka ku siinaya ma fanaani ma walaal ilaahay baan idinku dhaarshay aqligiina ma galaysaa inaad ka aamustaan ma fanaani ma loo aamuso walaal ma fanaan baa tahay maanta loo aamusay ilaahay baan idinku dhaarshay idinku baa kaas garaabo oo ma fanaanimo darteed yaan uga aamusaa dad walaalaha iyo dhibaato ku jira oo baxar ku jira oo jabhadi soo weerarayso oo ciidankii deegaanka iyo liibooliskoogii ay isbahaysanayaan shacabkoogii isbahaysanayaan xukuumadda yadiina ka hadli laadahay miyaan inay walaalahay u ka aamusaa ma taas afranimo darteed u ka aamusaya ay sheeg bal ii sheeg waaye waxaan idin sheegayaa maanta waa jimca inaan hadalka dheereeyo ma rabo maanta waa jimca war anagu in aan idinka xishooni karayno waan idinka xishoonay waxaan la hadlayaa waa xukuumadda deegaanka ee dullinimada ee meesha u fadhiyaan ee xabad awood iyo manfac aan lahayn sida dumarka u gabanaya waxaan sheegayaa inigaan sheegayaa anagu waxba idinkama baahano war Soomaali galbeed way isku filan tahay haddii aad leedihiin xukuumad baan anagu dabada u dhaqaynaa oo daba telefoon ka cabsoonaynaa iskaga taga meesha oo dad nidaam meesha keenta Soomaali galbeed waxaan leeyahay maanta anagu waan isku filannahay cafar bay noqotay cafar walaalnimadii way fahmi weyday war anagu ugaas baan leenahay qadarinaa walaal baan leenahay Soomaali baa inoo tala soo geedin ugu baantoon qadarinaa wayna la hadleen waxay yiraahdeen jooga inta aan anagu nabadda keenayno inagu aamusa waan aamusnay waan qadarinay walaalnimaan eegnay Ethiopia federaalkii baan la hadashay waan aamusnay waan qadarinay deegaankeena Soomaalideena iyo xukuumadeena baan la hadashay inuu yimaadeen gurigii aabaan soo fariisiinay wayna la hadleen waan maqalnay waan aamusnay intaasoo dhanba waxaan ka xishoonaynaa anagu walaalnimaan leenahay iyo Suuriyeyn iyo soo dhaweyn cid walbaabana way ogtahay inay Soomaali galbeed maanta dadka ugu fiican ee nasabada iyo nabadda ilaalisay inay tahay
marka waxa weeye intaasoo dhan way fahmi weyday Ethiopia way fahmi weyday deegaanku way fahmi waayeen haddii xukuumad Soomaali galbeed maanta difaacaysa aynan jirin annaga shacabkeennii oo isku filan shacabka Soomaali galbeedna waxaan faraynaa innigaa isku filan in lugaha leedin jiidin maanta dabadhaleefnimo in lugaha leedin jiidin war marka la idinku hoos leenayo carruurtiinii ubadkiinii iyo dumarkiinii ma waxaad markaa aad ileedihiin dawlad baan meesha ku haysanaa ya ma waxaad leedihiin siyaasadda ha ka hadli fanaan baa tahe ma waxaad dhahaysiin waa kaay walaalahaaba xaggaas ha lagu qowraco hal isku bahaysto oo hal xaggaas ha lagu baabiyo adiguna ka aamus ma wax aqalga gali karaya ya الحاصل واصل هذا صلاة كي جمعها قاري مرة بينا صلاتنا إذن كباتشيو انت هاي رمان ما توصل قال انت هاي مهم فينا كوه الله waxaan sheegayaa ummad walba ummadooda iyadoo dadkooga ayaa wax ka dhiga walaalayaal ummad walba maanta haddii Soomaali galbeed iyadu ay isku hadli weydo ay iyagu isdifaaci waayaan oo iyagu maanta iyagu iscunaan waxaan ogahay inay dib dambe iyagu wax soo xasuusta la waayo war gobolka city maanta cadow buu qacan ugu jiraa waxa isku bahaysanaya ciidanku wali booliska waxa isku bahaysanaya jabhadoodii waxa isku bahaysanaya shacabkoodii waxa isku bahaysanaya dawladoodii oo garab socoto daba yaacaysa waxa isku bahaysanaya cid walba maanta la ogyahay annagana waa arkaysid maanta ciidankeeni wali booliska inay dawladan wax matarayaasha ee liita inay lugaha ka wada xidheen ay kari laahiin maanta inay dhaqaaqaan cid difaacaan maanta way kari laahiin sababtoo dadkaas ayaa leedihiin waxbay noo qabanayaan oo inoo maqan ma dadkaas baa leedihiin damqan waayay ee walaalnimada eegi waayay ee walaalnimada isirkeen isku keeni waayay sii kala kaxaynaya ayaa leedihiin waxbay noo qabanayaan waxaana ugu sii daran dadka aad inagu meesha dhigateen dadkii aad lahaydeen waxbay noo qabanayaan in anagu maanta dhiganay ayaa noogu sii daran oo noogu liita oo noogu doqonsan maanta waxaan idiin sheegayaa gobolka city ay kaca idinku marka aad dadkiina tustaan inaad wax qabataan ee dadkiina u banaan baxdaan ee xuduudaha u xidhaan ee difaacooga u gashaan ee isbahaysigiina iyo midnimadiina keentaan ay Soomaali galbeedna wax inii qabanaysaa qurba joog walaa qulqul joog walaa gabiina maanta waxaan idiin sheegayaa inagu marka aad taladiina geysataan anagu cafartana cadaawad kama rabin iyaga faham waayay walaalnimadii iyo subagii iyaga daadiyay maanta laga bilaabo wax walaalnimo naga dhaxaysana ma jirto waxaan idiin sheegayaa inagu maanta waxaan idiin sheegayaa dawladna waxba uma baahan tihiin innigaa isku filan innigaa iska dhicin kara sidii aan awalba iskaga dhicinaynay waan iskaga dhicinaynaa laakiin dawladdan wax ma